madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta shaqaale weynaha adduunka isagoo madaxweynuhu xariga ka jaray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Hiba Maxamed Nuur ayaa faahfaahinta warkan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Kowda May sanad waliba waxaa adduunka laga xusaa maalinta shaqaalaha adduunka iyadoona Soomaaliya ay qayb ka noqotay dadka u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka. Munaasabad lagu weyneynayo xuska Kowda May ayaa waxaa lagu qabtay xarunta wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Soomaaliya. waxaana ka soo qayb galay xuskaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, labada gole ee dowladda Soomaaliya, ururka bulshada rayidka, gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, fanaaniin kooxda baambeeda iyo ciidamada booliska Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo halkaasi lagu casuumay. Xuska ayaa waxa ka hadlay oo hadallo ka soo jeediyay dhammaan marti sharaftii halkaasi lagu casuumay. sidoo kale waxaa ka hadlay xuskaasi wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tilmaamay in ay ku faraxsan yihiin in maanta loo dabaaldego Kowda May. marka waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo marka koowaad iyo marka labaad munaasabadan dadka ka soo qayb galay ee sharafta badan ee indhahayga aad ay u cajabiyeen. anigu ma hadli karo waa hadlida ah farxadda iga badatay gadaal markaan fiirino guri dheer gadaasheeda taagan. marka aniga ma raba inaan ku dheeraado gurigan 25 sano kadib waxaad aragtaan siduu u yaala iyo nooca uu yahay. waxaan filayaa shaqaalaha Soomaaliyeed public and private Raskamboni iyo Looyacadde inta u dhaxayso meesha laga maamuli jiray waa. ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo gabagabeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jaray wasaaraddaasi una hambaliyay dhammaan shaqaalaha adduunweynaha. arba ugu horeyntii inaan u hambaliyeeyo guud ahaan shaqaalaweynaha adduunka gaar ahaan shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan xoogsatada muruqmaalka dhinac walba kuwa dharka madow haysta iyo kuwa garbaatiga xiran intaba dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo maalinta Kowda May ee shaqaalaweynaha adduunka oo ka tihiin xubno firfircoon oo aad iyo aad muhiim u ah. sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan hay'adaha shaqada iyo shaqaalaha ku lug leh oo ay horjoog u tahay wasaaradda shaqada xiriirka guud ama isu taga muxuu ahay ururada shaqaalaha Soomaaliyeed iyo intii maxaan ku yiraahdaa shaqaalaha iyo guddiga madaxa bannaan ee shaqada iyo dhammaan wixii shaqada iyo shaqaalaha lagu kuloo dhan waxaan leeyahay maanta waa maalintiin iyo waxaan leeyahay hambalyo waa maalin weyn ee Soomaaliyana maalmihii soo maro taariikhiga ahaa oo suugaanta aad aragteen iyo maxaan ku yiraahdaa gabayada iyo maayooyinka waaweyn horay looga bixiyay waaye maanta muhiimadeeda dadka Soomaali dhaxdiisana sidaas ayay ugu weyn tahay. Hiba Maxamed Nuur, Somali Channel, magaalada Muqdisho.